السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفية ياسين oo idinku soo noqotay waxaan rabaa in halkaan ka wado barnaamijyadeedii ku saabsanaa maaragtay diidmada aan diidanahay 4.5 formulada Soomaaliya runtii muddo hadda laga joogo 2 bilood u dhow 2 bilood ayay ahayd markaan barnaamijkan bilaabay oo December 15keedii shirkii madasha ee Muqdisho markii aan ku baraarugnay in dawladda federaalka ay hogaaminayaan ururka damjadiidka ay maaragtay si bareera u yiraahdeen waxaan rabnaa 4.5 sida dadkoo dhan ugu baraarugeen oo ay maaragtay ugu argagaxeen ba aniga ruuxayga aan ugu argagaxay mana aanan filaynin in maanta ay rabaan in maaragtay groupka Soomaaliya hogaaminaya maanta in ay rabaan inay sidii wadanka ay awal u ragaadiyeen inay ku celinayaan marka runtii waxaan galnay hawl adag campaign adag maxay ahaydey waxaan sameeyay fiidiyoyo badan hadda waxaan aad ugu faraxsanahay qof walba oo Soomaaliya wuxuu ka hadlayaa maanta 4.5 waxaana keentay arintaas baraarujinteeni badnayd shacabkeena Soomaaliyeed gudo iyo dibadba oo ay ka qayb qaateen waxaan aad ugu faraxsanahay Ilaahay ugu xamdinaqayaa in maanta leader adag ama hogaamiye adag aan haysano oo garabkeena taagan oo hormuud u ah in uu ka soo horjeesto waxyaabahan 4.5 ka loogu yeero oo dulmiga 4.5 oo umada Soomaaliyeed oo dhan lagu dulminayo hadda gruubyada qaar baa waxay u qabaan inay iyaga dan ugu jirto 4.5 laakiin runtii dan ugu ma jirto haday xisaabtami lahaayeen oo ay fariisan lahaayeen marka waxaan rabaa inaan hogaamiyahaas sharafta iyo karaamada leh magaceena iyo sharafteena iyo karaamadeena kor u qaaday waa Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hogaaminaya dawlad goboleedka Puntland State of Somalia waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo sida dhiiran iyo maaragtay geesinimada leh oo uu u qaatay go'aanka adag oo uu uga soo horjeestay dhammaan intii u doodeysay 4.5 ka in uu yahay waxaan laga gudbi karin 2016 ayadoo ay waliba ku raaceen groupka loogu yeero beesha caalamka ama international community-ga waxaan rabaa marka dhowr waxyaalood inaan ka sheego arintan tan anaga nagu xiran Soomaali ahaan iyo mid la leeyahay beesha caalamka horta Soomaali ahaan anaga arintan anagay naga go'daa Soomaali anaga dhulkeena leh anaga wadankeena leh anagayna naga go'daa marka groupkan damjadiid oo dadka maaragtay marin habaabiyay oo qabiil iyo wax aan loo joogin iyo propaganda badan sameeyay ayaa dadkii xoogaa aad moodaa inay jaha wareeriyeen waliba dadka koonfurta Soomaaliya degan oo u eg inay maaragtay si fiican ayna u dhiiran karinin ayadoo ay ugu wacan tahay rajeenaya in ay wali maamulo adag ayna dhulka ka jirin ama dawlad goboleedyo ayna ka jirinin arintaas ayaa keenaysa hay'ado dawliye ayna lahayn system of governance maaragtay oo state level ah ayna lahayn ayaa keenaysa waa garan karaa waxa marka damjadiid oo ah madaxweynaha Xasan Sheekh iyo teamkiisa uu hogaaminayo oo uu ku jiro prime ministerka waxa ay damceen inay dadka maaragtay jahwareeriyaan oo ay wax aan jirin ay abuuraan oo ay yiraahdaan wadanku kama gudbi karo wadanka maaragtay waxyaabo runtii aan macna sameeynin ayay la soo shirtageen marka waxaan runtii u bogaadinayaa si weyn shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan oo ka soo horjeestay 4.5 waan ogahay qabaa'ilo badan oo Soomaaliyeed ayaa ka hadlay arintan oo diiday oo koonfurta degan balse cod ma ay laha ama leader ma ay laha hogaamin kara oo u hadli kara waan fahmaya balse dawlad goboleedka Puntland State of Somalia ayaa noqotay hormuudka ugu weyn ee ka soo horjeeda in 4.5 ay soo noqoto waxaana mahadle Ilaahay in dadkaas iyagoo midaysan haday noqon lahayd siyaasiyiin hore haday noqon lahayd madaxda hadda joogta haday noqon lahayd madaxweynaheena Cabdiweli haduu noqon lahaa shacabkeena gudo iyo dibad in aan si midaysan uga soo horjeesanay dulmiga 4.5 waxaan aad ugu faraxsanahay meesha aan soo gaarnay waxaan rabaa in aanan fariisan aanan seexan aanan hakan
oo aan dadaalka iyo gurmadka iyo maaragtay barnaamijkan aan wadno ilaa aan guuleysanayno waxaan rabaa inaan ka hadlo groupka ku saabsan maxaa la international community ama beesha caalamka waxaan rabaa inaan weydiino oo aan weydiinaynaa waliba Soomaali ahaan wadamadooda sharciyaha ka jira waan ognaa waliba Ingiriiska ninka hadda loo soo diray xoghayaha ah oo maaragtay Soomaaliya loo soo diray Ingiriisku ka yimid wuu og yahay wadankiisa sharciyo boqolaal sano jiray oo meel ku qoran baa jira oo lama taabtaan ah marka waxaan rabaa inaan weydiiyo Mr. Keaton sharciga wadankooda wuu ilaaliyay sababta keentay inuu dastuurkii Soomaaliya oo ay iyagu intaasoo milyan oo dollar iyagoo beesha caalamka ay 2012 ay ku baxsheen oo ay yiraahdeen waa lama taabtaan inuu maanta jabiyo waxaan rabnaa inuu na fahansiiyo si waadax noogu sheega sababtu waxay tahay sababtu waxa weeye wadankooda Ingiriiska iyo wadanka Soomaaliya isku qiimo ma aha dadkooda iyo shacabkooda isku dad ma aha sharciga miyaa sharciga ka wanaagsan inaan fahanaa rabnaa sababta uu hormuudka ugu yahay burburka Soomaaliya Mr. Keaton oo uu leeyahay maxay ahaydey 4.5 oo go'aan hore looga gaaray 2012 inaan dib loogu noqonaynin in uu yiraahdo hadeer waa in lagu noqdaa marka waxaan rabnaa inuu na fahansiiyo sababtu waxay tahay uu si toos ah noogu sheego arinta uu ku marmarsoonayo oo ah maaragtay Soomaalida isku raacday ma jirto dawladda damjadiidka ay hogaaminayaan kooxda damjadiid waxa ay geed dheer iyo geed gaaban u fuuleen siday ku soo noqon lahaayeen 2016 doorashada waxa weeyaan ballanqaadyo badan baa jira aan ka warqabno oo loo sameeyay ragga la shaqeynaya damjadiid marka waxay rabaan wadankii iyo dadkii iyo dalkiiba inay iibsadaan marka waxaan rabnaa inaan fahno beesha caalamka ma waxay raali ka tahay dulmi ma waxay raali ka tahay musuqmaasuq ma waxay raali ka tahay argagixisada inay sii socoto ma waxay raali ka tahay hay'adaha dawliga inaan dhismin ma waxay raali ka tahay inay dawladnimo Soomaaliya ka askumin ma waxay raali ka tahay in caruurteena iyo maatadeena ay sidaa u baaba'sanaato ma waxay raali ka tahay beesha caalamku in ay sidaa Soomaaliya loo exploit gareeyo su'aalahaas oo dhan waxaan rabaa inaan weydiino waxaan rajaynayaa maamulka dawladeena dawlad goboleedka Puntland marka ay beesha caalamka la kulmaan in ay su'aalahaas weydiiyaan ma waxay raali ka yihiin beesha caalamka in musuqmaasuqa wadanka uu ka jiro ma waxay raali ka yihiin argagixisadu inay sii jirto ma waxay raali ka yihiin in dawladnimo ayna ka hana qaadin Soomaaliya wax sababtoo ah 4.5 hadii la yiraahdo soo noqoto waxa xaqiiqo ah oo inaynu waxba isbedelaynin waxa xaqiiqo ah in musuqmaasuqu halkiisa uu ka soo laabanayo waxa xaqiiqo ah in maxay ahaydey xildhibaanada sidii loogu soo dooran doono maxaa la dhahaa laaluush la bixin doono waxa xaqiiqo ah system of governance inuu jiri doonin waxa xaqiiqo ah wadanka inayna dawlad ka hana qaadi doonin waxa xaqiiqo ah in argagixisadu inay sii badato mooyaan oo aan hadda dhalinyaradan shaqo la'aanta ah oo Soomaaliya 70% dhalinyarada ay shaqo la'aanta tahay in maaragtay nabadgelyadu xumadu ay sii siyaadaysa xaqiiqo ah waxa maxay ahaydey dadka maaragtay minority-ga oo la hakranayo ama la dulminayo oo loogu yeeray 0.5 inay maaragtay nacayb hor leh iyo shido hor leh Soomaaliya u abuurayso marka waxaan rabaa inaan weydiino international community-ga ma waxa soo dhan bay raali ku yihiin hadday raali ku yihiin hanoo qoraan iyadoo list gareysan hana yiraahdaan intaas oo xeeladoo problem oo Soomaaliya ka jira raaliyan kuna haddayna raali ku ahayn waa in ayna garab istaagin dawladda damjadiid ee hogaaminayso ee rabta in ay ku soo noqoto kursiga siday doonto waxa ugu soo noqotee inayna garab istaagin beesha caalamku waa inay banaanka ka istaagaan waa inay taageeraan shacabka Soomaaliyeed intooda badan 90% waxay rabaan 4.5 inay dhimato oo na dhaafto bay rabtaan marka beesha caalamku waxaan ka rabnaa inaan ogaano cidda ay taageerayaan haddii taageerayaan argagixisada haddii taageerayaan in burcadbadeed soo noqdo haddii waayo burcadbadeed iyo argagixisada waxay u soo noqonaysaa ama u sii siyaadaysaa shaqo la'aanta dhalinyarada markuu wadanka ka jiro wax shaqo ayna wadanka ka jirin prospectina uuna jirin ama rajo muuqata haddii aan 5 sano aan ka fakarno wadanka Soomaaliya waxa dhici doona waa aragnaa wax isbedelay hadayna jirin oo 4.5 kan aan la duugeenin maanta wax isbedel oo imaanay mala wadankan xaaladiisa inay ka sii xumaato ka sii fool xumaato mooyaane
ma hagaagayo marka beesha caalamka nooga jawaabaan arrimahaas oo dhan caawa intaasaan rabaa inaan kusoo koobo ma dheereynayo Puntland waxaan ka codsanayaa dowladda Puntland oo hogaaminaya madaxweynaha Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas aad baan kaaga mahadcelinayaa mar kale sida aad geesinimada u muujisay oo noo garab istaagtay aniga runtii waxay ii tahay sharaf iyo karaamo in gurigii waalidkay ka soo jeeday maaragtay ay garabkayga taagan yihiin oo movementigan iyo barnaamijkan aan bilaabay ay igu taageersan yihiin sababtuna waxa weeye dulmigan ka wada carareynaa kulligan waana wixii la igu soo koriyay waxa la igu soo koriyay dulmiga inaan diidno maantana tusaale u tahay Puntland inaan iraano dulmiga ma ogolin marka waan ku faraxsanahay ilaahay baan ugu xamdinaqayaa in dowladeena uu hogaaminayo Cabdiweli ay maaragtay garabkayga tahay waxaan rajeynayaa insha Allah inaan guuleysano ma hakanayno mana fariisanayno mana seexanayno in aan 4.5 ka suulinayno Soomaaliya marnaba ma yeeleyno waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo shacabkeena reer Puntland ee sharafta iyo karaamada leh gobol walba oo Puntland iyo magaalo walba ka mudaharaaday oo diiday qurbaha sidoo kale dadka ku nool waxaan rabaa inaan u mahadceliyo sida ay uga dhiidiyeen 4.5 inaan diidno marka halkaasaan ka sii wadeena halganka fadhi ma jiro waa inaan beesha caalamka kala hadalnaa runta u sheegnaa marka ay Puntland noogu yimaadaan oo la yiraahdaa sababaha waa inaan noo sheegtaan aad 4.5 wadanka ugu celinaysaan waayo ilaa hadda sababaha noo sheegan wax macquul ma aha wax naga gadmi karana ma aha intaasaan kusoo koobayaa caawo aad baan u faraxsanahay runtii guul baan gaarnay in at least dawladda ugu ballaaran ee Soomaaliya meesha ugu degan Soomaaliya meelaha qaybaha kamid ah wadanka Soomaaliyeed ee degan sida Soomaaliland iyo Puntland waxaan aad ugu faraxsanahay dhulka baaxadda leh iyo shacabka baaxadda leh in ay gudaha iyo dibad ay taageereen in 4.5 la duugo hoggaankeeduna uu ku taageeray aad baan ugu faraxsanahay hawshan waa wadeena insha Allah halgankuna ma dhawa ilaahay idinkiisana waa guuleysanayna waayo dulmigan ka cararayna dadka dulmiga ka cararayaana mar walba guuleysta ilaahay waa caadil waa xaq soore dulmi marnaba alla raali kama aha waxa raadinaynana waxa way dulmi in laga baxo iyo silciisa xariir Soomaaliya ee dhex taalo maanta intaas aan ku soo koobaya assalaamu calaykum